وحولي سائل كان قبضني وحيل هذا السلام عليكم وحن يوروب كو إمد لعق دين وحن دمع إنا نقرسدو والدكي وحي شردي إيقاديجين قوركي إنا نقول كهوري بحيو لعقتي دين تاهيد دين تنا حد ما بحين كرو إلى أن كقرسدو كدبنا عرور دلو وحا عرور طلع يوسي بان دين تكو بحين كرا شيخ ومقرسن كرا وللآن الله المستعان ما هبونا والدكو إنو قبرديسا oo guur gaadhay oo bilaad ama dhulka qurbaha joogta oo ogtiin fidnada ka jirta dadkii waaweynaa ee reeraha lahaa badbaadila oo khatar ku jira gabadh dhalinyaro oo reer lahayn ninka intuu badweynta ku dhex tuuro mawjadaha ku dhex tuuray hadana ha guursadnin ilaa adeynta iska bixiso waalid aqligiisu dhiman yahay يا سفاهة كجرت عقل يري الدين يري بها كجرت هدي أوكسون يا خطرت يديب كماشة كجرت جبردي سعر دي شرف كذا هلستو كجرو وحول بوحو كهر مرين لها جورسو لكن ما دوقون در حيسة أما السفاهة عقل در حيسة أريد زيارين صحسن معها gabadhaasi haday ku adkaato inay is-ilaaliso wayba adag tahay ruux meesha jooga inuu is-ilaaliye ha guursato haday iyagu diidaan inay guuriyaanna qaadi sharci ah raadiso oo meheriya haday qaadi sharci weydana magaalada ay joogto muslimiinta ninka imaamka u ah iyo maraakista muslimiinta mashdasha iyo jamciyaadka matasha iyo madaxdooda meesha joogta ayaa wilaayadeeda qaadayo iyaga meherinay laana waalid ilmihiisi inuu xumaan ku dhaco ay taladiisu noqotay iyo tala xumadiisu ay noqotay la dhihi maayo haloo daayo ilmuhuna ha fitnooba la dhihi maayo wilaayada xoog looga qaadan waana la meherin waa xaalaadka macnaha cadliga kale saas daraadeed ha guursato waxa ka maqan waalidkaas oo aqoon darrada haysa kamida ruuxu markuu guursado rag ha ahaado dumar ha ahaadee markaasaba ilaahay uu kaalmeeyaba gabadhan iyadu wayba soo bannaankayba soo dhigto waxay tiri caruurta waxaan ku qaadanayaa deyntii ku bixinay keligay haddaan shaqeeyo ordayna deyntii waan bixin lahaa war waalidkanu hadiiba deyntii laga bixinayo meel fududba gabadhu ka keentayba maxaad u diid waaba la yaab sooma haday iyadiina islaaliso guursato deyntiina sidan baa ku baxaysaba adeer maxaad u hortaagantahay waa arin khalad ah saas daraadeed gabadhu ha guursato xadiidka nabigeena sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay thalathun haqqun ala allah ya'awnuhum saddex ilaahay baa isa saaray oo xaq isaga dhigay inuu kaalmeeyo saddexda waxa kamida waa naakih alladhi yuridu al-afaf ruux guursanaya guurkana ku raadinaya inuu is-ilaaliyo oo zina iyo xumaan iska ilaaliyo sida ruuxa ku guursanaya ilaahay baa ballan qaaday inuu kaalmeynayo marka gabadhaasi bilaaday joogto iyo meeshay joogtana waa meel aan garanayne ha guursato waalidku haday u diidaana meesha dadka jooga culimada joogta iyo mas'uuliyiinta muslimiinta meesha jooga wilaayadeeda iyaga la wareegay iyagana guurinaya sultaanu waliyun walla waliya lahu wallahu a'lam